waxaa maantay magaalada Muqdisho lagu qabtay gogol lagu magac daray gogosha iscafinta beelaha Habargidir iyo Mudulood taasi oo ay ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka ee labada beelood ugaasyada iyo imaamyada iyo culimo waxaana gogosha soo agaasimay oo dhigay golaha hogaaminta Habargidir ujeedka ugu weyn ee loo dhigana waxa ay ahayd in la iska cafiyo wax kasta oo la soo wada maray ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha hogaaminta Habargidir Professor Cabdulqaadir Maxamed Shirwac maantana iscafis Mudulood iyo Habargidir u dhacayo waxaan rajaynaynaa inay halkaan nooga sii socoto imaamka iyo ogaaska waa ka codsanay inaanu shirarka kale xiga aan sii wadano oo siday noogu kala horeeyaan aan u sii gali doonaa hadii Ilaahay yiraahdo yani Mudulood baan ka bilownay waxaan noogu xigi doonaa waa sheegi doonaa idaacada dadka ku xigi doona Soomaaliya dhammaan rabnaa inaan saa u gaarno iscafiskaan iscafinayna inaanu dhaxdeena iyo dadka kale ba cafino Ilaahay aan ugu toosiyay Ilaahayna noo aqbalo niyadeena san maanta madashaan loo fadhiyo rag iyo dumarba u fadhiyaan oo Mudulood iyo Habargidirba u fadhido waa xal u helida bilowgeedii Soomaaliya sida maanta ku sugan tahay si dhaanta si loogu ambaqaadi lahaa waa qodobka aan rabno hadii Ilaahay yiraahdo inuu halka ka sii socdo oo Soomaali weyn sii gaaro xamar beelaha degan markaan wax ka niraahno wuxuu noqonayaa xamar cida ka baxsan ee meelaha kale degan in goobahooda loogu tago Soomaali ma kala maaranto waxba kala gaaray ama hafa kala fogaadeen ama isku dhawaadeen wixii kala gaaray ayaa xalis u baahan oo la xalinaya insha Allah dadka aqoonta u leh ayaan la kaashanaya oo xalin doona waayo arag oo ah goobaha iyo meelaha wax ka dhaceen intaba joogay xogaalka waa intii ka hartay intii dhimatana Allah u naxariisto wadadu waa dheertahay ma dhawa waa qodxa badan tahay dulqaad iyo samir bay u baahan tahay dulqaad iyo samir bay u baahan tahay la tashi bay u baahan tahay iyo waayo aragnimo in dadka waayo arag diinta ee muddo soo joogay in la tashado oo wax la weydiiyay u baahan tahay waxa ay tilmaamaan oo sheegeen in siday tahay loo qaatay u baahan tahay in la isqiimeeyo la isdarajeeyay u baahan tahay oo qof walba waxa uu ku darajeysan yahay iyo qiimaha uu leeyahay lagu tixgeliyo haday wiil tahay haday gabar tahay dhanka kale ugaaska beesha Mudulood ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu gogol u fidiyay odayaasha dhaqanka ee ku sugan goobta waxaan rabnaa anagu beesha Mudulood ahaan aad sharaf noogu tahay una soo dhaweynaynaa midnimada iyo iscafiska iyo wada tashiga iyo walaalnimada beesha Habargidir waxaa la hawl hadaa rabto inaad ka mira dhaliso lagumana degdego lagamana daaho marka waxaan is leenahay inaan wax qabano oon hore u socono waxay u baahan tahay inaan sidii Muduloodna loo soo daahin sidii Habargidirna loo degdegin sharafay noo tahay marka waa idin soo dhaweynaynaa beesha Mudulood marka waxaan rabnaa inaan walaalaheena naga yar weydiisano waxaa noo socda wada tashi waxaa noo socda howlaha qabyo noo ah gogoshaan wanaagan waa soo dhaweynaynaa sida gudoomiyuhu u ballan qaadana waxaan rajaynaynaa inay hore u socoto oo beelaha kale ee hawiye iyo dadka banaadiri iyo Soomaali inteeda kaleba socon doona inaad wadatiin annaguna inaan maxal dhigi soo dhudhuujino xirkaha soo adkaysano kadibna gogoshaan ku xigta anigu aan dhigno sidaasaan rabnaa inaad naga aqbashin idinku aad u mahadsan Sugaal Axmed Carab ayaa si guud u faahfaahiyay gogoshan maanta ay dhigeen iyo ujeedka ay kala haayeen maanta oo ay tahay taariikhdu 27 bisha koowaad shirkii ay ballan qaadeen golaha hogaaminta Habargidir bishii 9aad Hobyo markay ku soo xirantay heshiiskii Habargidir ay gaartay oo ahaa iscafiska iyo walaalnimada waxay ballan qaadeen inay beelaha Soomaaliyeed oo dhan la kulmi doonaan isna cafin doonaan bay ballan qaadeen golaha hogaaminta ee Habargidir shirkii koowaad ee beelaha walaalaha ah ee Soomaaliyeed
oo la qabto u horeeya shirka maanta ka dhacay halkan beeraha Mudulood iyo Habargidir ay isku cafiyeen ku walaaloobeen ku midnimo ku gaareen buu ahaa shirkaani shir aad iyo aad u weyn buu ahaa shir wuxuu ahaa muhiimadiisa leh waa shir loogu talagalay beelaha Soomaaliyeed oo dhan in lagu iftitaaxo maadaama beelaha Soomaaliyeed qayb ay u kala horeeyaan qaybtii nasiibku u galay ee in la kulmaan ama iscafiyaan beesha Habargidir iyo beesha Mudulood bay noqotay maantay waxa ku xigi doona beelaha Soomaaliyeed ee geyiga Soomaaliyeed dhan degan sida iyo systemka ay u kala horeyn doonaan dib baan ka soo sheegi doonaa maantay buu dhacay ku kala ku xigi doonaan ilaa beelaha Soomaaliyeed oo dhan ay xiriirkaas iyo iscafintaas aan gaarsiino annagoo ah golaha hogaaminta beesha Habargidir waxaa sidoo kale isaguna halkaas ku duceeyay imaamka guud ee beesha maanta waa taariikh abgaali Habargidir faataada isla marteen tiir mawda Allah ka dhig shartii shaydaanka Allah naga xijaab shimbirka buko dhaxdayna ku jira kii maanta ka bax Allah ka dhig umada kale inta tii nagu raacad Allah ka dhigo xamar iyo Soomaaliya maanta tawfiiq u baahantay Soomaaliya tawfiiq Allah ka dhigo meel kasta jirto Soomaaliland ha ahaato Puntland ha ahaato meel kasta ha ahaato baqayadaas xuma baxay mid Muqdisho isugu timaad Allah ka dhigo shartii shaydaanka Allah naga xijaab walaala isjecelaana ku isgargiro isgarabdag Allah naga dhigo wixii khayr isla fala Allah naga dhigo kuwii sharta iska celi Allah naga dhigo